haddii aan zaki xuquuqdeeda u diidi lahayn looma xireen garaadahaas caawa. Sakiya Xuseen Axmed waa gabadhii ugu horeysay ee taariikhda ciidanka qalabka sida ka gaartay darajada General ama sareeyo guuto. sidoo kale waa gabadhii ugu horeysay ee qabata xilka ugu sareeya ee gabar ka qabato ciidanka Soomaaliya kaasi oo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaana u xiray darajada sareeyo guuto kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalacsiyay bishan Agoosto ee sanadkan 2018 isla markaana uu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed. munaasabad lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa loogu xiray General Sakiya darajada ay ku gaartay dadaalka iyo howlkarnimada ay muujisay waxaana goobjoog ka ah xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda. General Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa xusay in booliiska ay sharaf u tahay in gabadhii ugu horeysay ee gaartay darajada sareeyo guuto ay ka mid tahay ciidanka booliiska. taariikhna ciidanka booliisku ah gabadhii ugu horeysay ee gaartay darajada sareeyo guuto inay ka bilaabatay ciidanka booliiska. ammaan iyo waxay tahay guul u soo haytaan orna ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ugu horeyn General Sakiya ugu hambaliyay darajada ay ka gaartay ciidanka qalabka sida ayaa tilmaamay in dumarka Soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin bulshada Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ay Sakiya qayb ka tahay taariikhda wanaagsan ee ay leeyihiin haweenka Soomaaliyeed. waxaan ugu hambaliyaynayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed anigana وعاو يسوى كيشي مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا إنان كل جن نصيبه يالنو إنان مرخاتك نقولنا تاريخ وسو تاريخ ذا سوء لقى سوء باللابو مالين تدل كأن حرية دغاتي ينتكو الرئيسة وحاجهاد وجري دلكن إن الدسان قبل سوماليا وعاجبت لبا تاريخ تيه الرئيسي وأهد رق ديدنا إن قبلها حقوق ذو دلسيو إن أي قيب كان نقضان مدى قرنكا إن أي نقضان هقامياشا كان نقضان قلوين كي دل كان كلها حقا كلها ين يكو عصب وانا نقول كوكا آيو إن دمر كالصوماليات حقوق ذو دلونا ما يسترو لنا سيو وعوال بي حق ليهين سي بلشدنا يقول نقطة بلشعة في مالغب qaran guuleysanayo ma jiro haddii aan la siin qayb walba oo bulshada ka mid ah xuquuqdeeda haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay shacabka Soomaaliyeed ka yihiin 50% indhaha aan iska xirno duudsano xuquuqdooda ma dhisayno Soomaaliya la tartami karta wadamada dariska. munaasabada ayaa sidoo kale darajooyin loogu xiray dhalinyaro tababar leel sargaal ah ku soo qaatay dalka Suudaan halka shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ciidamo tababar kala duwan ku qaatay gudaha dalka kuwa oo la baray sida ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay la falgalaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhalinyarada ku soo biiray ciidanka booliiska ee tababarka ku soo qaatay dalka Suudaan iyo kuwa gudaha dalka ku qaatay tababarada kula dardaarmay inay noqdaan ilaasha dawladnimada Soomaaliya maadaama ay yihiin rajada ummadda Soomaaliyeed. wiilasha dhalinta yar oo halkan jooga oo u labisan iyaguna inay ka soo baxaan tababar waxaan idin leeyahay waxaad ku soo aadeen waqti wanaagsan waqti ummadda Soomaaliyeed ay soo jeesatay ay kala garatay saxda iyo khaladka la bilaabay in la ilaaliyo xoolaha ummadda Soomaaliyeed la bilaabay in la dagaalamo musuqmaasuqa la gartay dawladnimada Soomaaliyeed inay ku taagan tahay dariiqa saxda ah idinkana la idin soo xulay inaad noqotiin ilaaliyaasha dawladnimada ummadda Soomaaliyeed. qorigii qalin baan ku bedelnay qabiilkii iyo qabyaaladina qaranniman ku bedelnay qoorsigii qab baan ku bedelnay haddii qaar idinka mid ah ee wali shaki qabaan in loo noqonayo meeshii laga yimid ana caawa idin cadeynayo way dhamaatay taariikhdii hore haddii aad isleedahay qabyaalad baa loo noqonaya musuqmaasuq baa loo noqonaya
nin jeclaysi baa loo noqonayaa soomaaliyadii shisheeyaha loogu adeegi jiraa loo noqonayaa dhowr qof baa awoodda dalka haysalaa loo noqonayaa gabdhaha soomaaliyeed ayaa xuquuqdooda la duudsiinaya loo noqonayaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaa xuquuqdooda la ilduufinaya loo noqonayaa haddii aad ku fikirsan tahay taariikhdaasi way dhammaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa intuu ku sugnaa dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaalida jenaraal kaahiye waxaa saraakiisha ciidanka booliisku tuseen xafiisyada iyo qaybaha uu ka kooban yahay dugsigaasi ee tababarada kala duwan lagu siiyo ciidamada booliiska soomaaliyeed qaybo ka mid ah dugsiga jenaraal kaahiyana waxaa xilligaasi uu ra-iisul wasaaruhu kormeerayay tababaro kala duwan ku qaadanayay ciidamo ka tirsan hogaanada kala duwan ee ciidanka booliiska. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.